sanado badan oo rafaad iyo dhib ay ku haysatay gudaha Liibiya iyo Toobiyaha saxariirta badan ee loo sii maro wadankaasi ayay maanta dib ugu soo laabteen ciidooda hooyo. waa 49 xubnood oo u kala dhashay Somaliland iyo waliba dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Runtii waxaan kala kulmay dhibaatooyin aad u badan. nabarkan aad arkayso iyo nabar ka waaweyn waxay iga soo gaadheen Liibiya alxamdulillah maanta mar haddii aan ka nabad qabo wadankaygina nabad ku yimid waa murugada qaarkood aan maskaxdooda ka baxayn waxa kamid ah in saaxiibadood hortooda ay ku dhinteen iyagoo aan waxba u qaban karaynin. waxyaabihii ugu la yaabka badnaa oo aan la kulmayo inta wadankaas Liibiya joogay wuxuu ahaa yani anoo xalatoolo oo kala la casheeyay in saaxiibkay ah oo bacdeen uu seexday in waagu markuu bariya aan soo toosa soo meed ah oo aan kafan u raadiyo waxa kale oo igu la yaab badnaa yani dad aan arkayo saacadan iyagoo nool ina saacada labaad dhimashadooda iyo haddana aan arkayo yani waxyaabaha ugu waaweyn ee aan Liibiya kula yaabay waa dhimasho joogto ah. hamigay ma hoos marin hooyo hal mar aan qasaariyay hooyo ha ii qamo waqtiga baas hooyo hor socdayaan ay hooyo halistii taariibtu hooyo. Nasruddin Aadan Abiib muddo 18 bilood ayuu ku xidhnaa wadanka Liibiya. hadda waxa uu la kulmay hooyadii waana ilbiriqsi uga duwan noloshii uu ku jiray muddadii 18 bilood ahayd ee la soo dhaafay. maanta ayaan adduunka intaan ku noolay ugu farxad fiicanahay dee habeen hurdo maan aqoon ma seexan jirin ama teedna maalintii uu tagay igu dambeysay marka maanta farxadii adduunka ugu weyneed janna ka maqan baysmalihi. xukuumadda Somaliland waxay sheegtay in dhalinyaradan ay u diyaarisay qorshe noloshooda dib loogu hagaajinayo. mar hadda Somaliland timaadeen suuqa kala gal laydin oran maayo nolosha gacan baa laydin ka siin doonaa haddii ilaahay ka dhigo xukuumadda Somalilandna gacan bay ka siin doontaa heedaha caalamiga gacan bay ka siin doonaan galabtana laydin sheegi doonaa caawana laydin sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa ballanqaadyadii bay ka mid tahay waxaan filayaa waa markii u horeysay ee tiro tahliibayaal oo inta leeg Somaliland mar ay ku soo wada noqdaan waa ballanqaadyadii xukuumaddan maanta Somaliland ka talisa. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu dhalinyarada kula dardaarmay in dhalinyarada kale ay ka wacyigeliyaan tahriibta. idinka waxaan iska codsanayaa inay imankana noqotaan tabliiqiin oo kuwa sii socda joojisaan maanta mid baa yiimiin bayaan saaxiibnahayn oo naxsan oo yiri inantii baa iga tahriibtay waa maantadan markaa waxaan jecelahay inay doon aad dhalinyarada wada hadashaan. Jeesami oo madax ka ah hay'adda IOM qaybteeda Somaliland waxay HCTV u sheegtay in hay'adooda iyo xukuumadda Somaliland ay iska kaashadeen soo celinta dhalinyaradan. waxaan ognahay inay galeen safar adag aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo celino wadankooda annagoo wada shaqaynayna xukuumadda Somaliland. dhalinyarada maanta la soo celiyay dhammaantood waa wiilal haddaba miyaanay jirin haween Soomaali ah oo ku xidhan gudaha wadanka Liibiya. su'aashan ayaan weydiiyay Jeesami. waa su'aal fiican waxa jira hablo jooga Liibiya laakiin waxay ku soo baxeen kooxdan rag kaliya amaba inamo. is all boys all men who are returning. eheladoodii oo halkan ku sugayay ayay farxadda isla qaybsanayaan. maalmaha soo socda ayaa la filayaa in qaar badan oo kale oo kamid ah dhalinyarada reer Somaliland ee ku xidhan wadanka Liibiya laga soo dejiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dawladdu. Xasan Suleymaan Harun Galayd wararka telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa.